Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, guys. Long time no see. Subhanallah. Ayantan waan aamusay and there's a lot of reasons aan u aamusay and maxaa la ii sheegane insha Allah bismillah alkareem waxaan rabaa hadda inaan soo noqdo. I need to make a comeback. We need to come back. Waa inaan soo noqonaa. So insha Allah bismillah alkareem waa idin soo noqday walaalahay, waa idin jeclahay, waa idin xiisay. I hope you guys missed me a little bit. waxyar inaa xiistana horjeynaya aada idinku xiisa aniga kolba and so dhawaada kulligiina and maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado video and this is my birthday dhalashadeeda ahayd and maxaa la sheegana just ani xaaji kaliya ayaa bixinay xaajiga casho igu casumay so xaaji geenayay so anigana maanta waxaan rabay maadaama iga jabneed waxaan dhahay yani cidiya xataa waxaa saartaa rinji so rinjiga hadda cidiyaa saaranooya and so that's that and marka walaalahay sa ii tihiin mar hore ayuu kiin dambeysay. Oh my god, ma idin xiisan mise ma idin xiisin? caadi maasa inay ku xiisay. I miss you guys so much. laakiin waxa waay adduunya iskaga taba timi, adduunyo hool adduunyan galnay, waxyaabo badan aa idinka dambeeyey ilaa iyo maantana maalin kasta waxaan dhahaa la sheer garay laakiin haddana waan ka noqdaa. maalin walba waxaan lala sheergaray haddana la sheergaray marka aniga yaa mataqaanaa i sheegane dagaalan ku jiro ma fahanteen. insha Allah whenever I feel ready markaan diyaar noqdo waa inala sheergareynaya sababta idinkaga maqnaa. That's a reason, waxa waay sabab baa jirta idinkaga maqnaa. so insha Allah markaan diyaar noqdo waa idinla qaybsanaya. so for now hadda waxaan sameynaynaa insha Allah bidmillahi kan rajic diyaa marsanaya. that's it. intaas le waay waxaan sameynaa marka waa isdiyaarinaya maadaama oo mataqaanaa maalin kasta habeen kasta casho la aadin oo mataqaanaa romantic aysan ahayn. tonight aniga waxaan rabaa inaan isdiyaariyo maadaama xaajiga igu casumay inaan casho aadno. wuxuu ii keenay alxamdulillah is a beautiful flower. waxyada aduu kugu jeclahay waa waxa la yirahdo lilies is my favorite, absolute favorite maxaa la flowerka. xaajiga always wuxuu ii keeni jiray red roses markaa ku dhaniyo iwadii horta waxaan jeclahay rose kaliya iska keena because you know rose qof kasta wuxuu malay rose romantic. anyway that's why aan ku dhahay insha Allah kanaan jeclahay. so maantaan u sheegay kaasaan jeclaan ku dhahay maalintaasuu bilaabay inuu ii keeno uwaxaas oo lili la dhaho insha Allah. I don't know inaan video inaan ka duuba I have no idea laakiin caawa cashaan aadayna. so rinjiga cidiyaha marsaday, there you go, guduud iyo cadaan and so was diyaarinayaa guys. so gabdha samaanta dhalashadeeda waa so ciyaalka waxaan u kariyay bariis cad iyo maxaa la dhahaa suqaarkooda aan u sameeyay ciyaalka. marka maxaa la sheegana hadda aniga is diyaarinaayo ani ma qadeenaayo basni xaaji waxaan u soconaa maqaayada u soconaa restaurant u soconaa soo meesha ka soo casheynayna insha Allah was diyaarinaya. so waa in ka xaysanaya hadii ilaa raali kana qadada u diyaariyo way qadeenayaan ayaga asaga tagaynaa. so let's go.
okay gabdho waa isdiyaariyey hamburkana xiranayaa caawa waxa waaye dhalashadeeda waa samoodin so my birthday so waxaan aadaynaa casho waa idin sheegay cidiyahan rinjigaana marsaday cidiyaha so rinjigaana marsaday halkaas faranti ayuu ku jiro I don't know wait halkaas faranti kale iigu jiro waa ii diyaar cambuurkana xiranayaa boorsadeedii xagga taala ee laptopkayga hadda ujeedaan you can see it's here qurushkan yarnoo ku xirtay katiinadan ay xiran tahay okay gabdho so kabahana iigu jiro balariinahana iigu jirto cambuurkayga waa kana boorsadeedu waa ii furan tahay okyaalahana ii xiran waa Dolce & Gabbana katiinadeeda waa tana hadda ujeedaan I don't know if you can see hadda arki kartid this is katiina so cambuurkana waa kana kabahana waa kana that's it makeupkayga waa ii marsan yahay guys hadda ujeedaan indhay waa xiran yihiin so waxay ina geysanayaa de meesha qadada isku raacashada isku raacayna xaajiga baawarka ugu sugayaa oo idahsanooyaa guys Assalamu alaikum guys bye bye so nakena so maanta waa dhalashadeeda insha Allah next week waxay idin soo duubayaa qorax next week waxay idin soo duubayaa haddii ilaahay raali ka noqdo maxaan lahaa ii sheegana my anniversary arooskeena insha Allah sabtida axadda soo socoto 10 bisha waxaa waaye anniversarygeena insha Allah video idin ka soo duubayaa 18 years guys 18 sano aa ka soo wareegay anniversarygeena I cannot believe 18 sano soo orday أنا مية قلنا سديت 8 سنة سوي أردن عجيب amazing أنا دحين so 18 years بركة surprise ceremony I will صورنا إن شاء الله and yeah there you go so إن مريم حاجك السوق يا بلاتي أنت كبحري أنت كبحري اللي هاي مركنا مريم
it is always guys mar waxa fiican and I know maxaa la ii sheegay birthday ama dhalasho iyo waxaas anaga normally maan isticmaalno laakiin this waxa waye waqti oo mataqaanaa waxa waaye adiga iyo xaajigaaga ku tusayo in mataqaanaa he cares inuu ku gargaranayo inuu ka fikirayo maxaa la ii sheegay it's always nice mar way fiican tahay in mataqaanaa labada qof isqabto especially in muddo isqabto sidani xaajigayga kale 18 sano it's a long time waqti dheer waay marka way fiican tahay spark in la sameeyo wax oo mataqaanaa aad filanaynin inaad sameysaan inaad waqti wada qaadataan labadiina ama dhalashadaada ha ahaato ama date night aad samaysatid ama mataqaana anniversary aad lahaatid yani sanad guuriyadiina ay ahaato waxaa fiican in labadiina waqti wada qaadan kartaan oo ii sheegayna maxaa la ii sheegayna time idin qaas idin ah oo ilmo iyo dhib aan ku jirin inaad wada qaadan kartaan intaas yar aad wada fadhidan aad wada sheekaysanaysaan waxa waaye conversation is going waxaan la dhahayo ii sheegana guurka iyo jaceylka iyo mataqaana waa waqti dheer markii la isqabo way adag tahay sida mataqaana spark u sameysay sida mataqaana ii sheegana guurkaaga always fresh u ahaado way adag tahay so what you can do waxa sameyn karta waxa waa even hadeedan wax kale aad qaban karinin summer evening oo kale habeenka summerka oo kale to kuleelka jiro quruxda badan tahay banaanka oo kale suraaca geedata walk shaqo wax yar socod sameeya maxaa la ii sheegeen ama magaalada taga ama beeraha taga ama mataqaana meel loogu talagal socodka taga so hatta cashadan waa soo dhameysano soo xoogaa yar magaaladan ku lugeynona daadarta magaaladeeda waa magaalo yar oo mataqaana aad aan u jeclahay it's beautiful city waa magaalo aad u yar oo haddana aad qadiimi u ah dhismaheedaad ka garan karaysaan so dadka dhan banaankay joogaan meesha banaanka lagu casheenayaa ama kafee lagu cabayaa ama mataqaana isheegana and most of it markaa fiinaysa waa laba qof oo mataqaana isqabo oo isla socdo u badan just mataqaana guri ku jirkaan iyo mataqaana ilmahan aan ku wareernay sometimes waxaa fiican inaan ka dhexbaxno waxooga yar mataqaana banaankii adiga iyo xaajigaaga soo wada qaata waqti fiican definitely so here it is waa feet maxaa la saad u jeedaa magaalada way shidan tahay dadka way buuxaan maasha allah so we just walking hadda waxaan sameynaynaa xooga yar aan socono that's it insha allah next week waxaa idiin soo dhigayaa anniversarygeena meeshaan aadnay ani xaaji keliya waxaan soo qaadanay waqti aanan caadi ahayn weekend getaway aan sameynay marka weekend keliyaan baxnay it was beautiful it was romantic waa aadeen u qurxoonaad insha allah waan idin qaybsan doonaa assalaamu calaykum